waxaa igala qayb geli doona siyaasiga weyn Maxamed Amiin oo kamid ah siyaasiyiinta ugu caansan magaalada Muqdisho muddada uu barnaamijka socodana waxaan ku soo qaadan doonaa dib u dhiska ay dawladda Turkiga ka sameysay gudaha dalka Soomaaliya maxay tahay horumarada laga faa'iiday mana yihiin kuwa u dhaqan galay sidii ay dawladda Turkiga u damacsaneed waxa arrimahaas oo dhan aan weydiin doonaa siyaasiga caanka ah oo intuu muddada barnaamijka socdo nagala qayb gali doono waqtigiisa qaaliga ah inoo soo horay kusoo dhawo ugu horeyn siyaasi ee barnaamijka nasiinada jimcaha ee webka caanka baxay warqadonline.com waa mahadsan tahay wariye Sarbalil waa kusoo dhawahay waxaan ku dhahay website-ka warqad online iyo wixii lamid ah waa marka waxaan jeclaan lahaa inaan u sii guda galno su'aalaheeni waa tahay siyaasi ugu horeyn su'aashan ugu horeyso waxay noqon doontaa dib u dhiski mise dib u dayactirkii ay ka sameysay gudaha dalka Soomaaliya dawladda Turkiga waasi horta ugu horeyn hadii aan ku weydiiyo waa mahadsantahay waribil hadii su'aalaheeni iyo jawaabaheeni aan u sii guda galno Turkiga walaalahan Turkiga dadaal weyn ay noo sameeyeen caalamkood ogtihiin in muddo 20 sano soo burbur ku dhacay waagii UNISOM ay ka baxday Soomaaliya wixii ka dambeeyay in caalamka ay ku soo dhiiran waayeen dalka Soomaaliya kadib waxa imaanshihii ra'iisul wasaarihii hore ahna hadda madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan markuu yimid wixii ka dambeeyay in caalamka Soomaaliya way ku soo jeesteen Turkigana iyo dawladda iyo boqortooyada Ingiriisiga waxay dal dheer u galeen sidii indhaha caalamka Soomaaliya loo soo jeedi lahaa ra'iisul wasaaraha Ingiriisiga waa wasiirka dibadda maray yimaadeen marka shirar badan ladna waqti lagu qabtay shirar badan Turkiga waqti lagu qabtay tan waxay soo tagilisay in si toos ah mashaariic badan dawladda Turkiga ay Soomaaliya ugu fuliso deeqa badan Turkiga lagu aruuriyo deeqa badan Ingiriisiga iyo caalamka intiisa kale lagu aruuriyo hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ay wax badan qabteen laakiin in fact dawladda Turkiga ayaan dhihi karnaa wax la taaban kara ay qabatay sax siyaasi hadii aan dib u dhiski ay ka sameysay dawladda Turkiga gudaha dalka Soomaaliya wadooyin fara badan oo burbursanaa ay dayactir ku sameeyay ka gadaal wadooyinkiina hadana waxa lagu arkay roob markay imaadeen in ay sidii hore ay noqdeen marka dib u dhiska ay sameeyeen mise dayactirkooda ma ah mid qalabeysan mise wuxuu ahaa mid meel low oo bilooyin in lagu gudbo ay rabeen waa mahadsan tahay wariye Baril waxa ummadda Soomaaliyeed inay arrintaas su'aal ka taagan tahay oo dayactirkii dawladda Turkiga ay sameysay durbadiiba isbedel lagu arkay sida Stark Differ oo biyo soo deeyay wadooyinkii oo maxaan ku dhahay dib u sii burburayo marka taa waxaan rabaa inaan iftiimiyo waxna waa wax isma rasmi ah waxna waa wax dayactir ah waxa ay dawladda Turkiga oo walaalahan Turkiga ay noo sameeyeen waxay ahayd wax dayactir ah ama aan wax isma rasmi ah marka dayactirna waa la garan karaa maanta Soomaaliya oo burbur ka jiro oo baaba ka jiro dayactirkii ugu horeeyay ee la sameeyay isla markiiba in maxaan ku dhahay ay maxaan ku dhahay damage oo hadana iman karo dhismo rasmi ah gogol xarkidi way wax hadda socdo laakiin waxa hadda socday waxay ahaayeen dayactir way anaga xitaa ma awoodin in wax dayactirano macnaha duruufta aan ku sugnayn awgeed iyo nationkeeni oo burburay marka this was dayactir ahead dayactirkiina hadda dhibaato ku timid waan hadana Turkiga uu tacaalaya inuu hadana uu dayactir labaad oo kab ah oo ku dayactirkiisa hore ku sii sameeyo uu la tacaalaya sida meelaha oo hore u dayactir ay muuqatay sida Stark Differ waa marka waan rajaynaynaa in Soomaaliya ay nabad ka dhacdo oo horumar iyo dib u dhis oo rasmi ah ay ka bilaabato dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin dayactirka ku sameeyay gudaha dalka in ay ka dambeeyay siyaasad uu ka leeyahay dalka Soomaaliya marka dadka ka waran waxa aaminsan maxaa dhihi lahayd waa maasan tahay wariye Baliil su'aal aad u muhiimsan way Soomaalida waxa heerkan gaarsiiyay waa jaahilnimo way hadii dad oo maxaan ku dhahay aan jaahil ahayn dawladooda iska mudumiyeen dalkooda iska mudumiyeen nin dhimanayo
asagii isdilayo la badbaadinayo danta laga lahaan karo maxay tahay waa nothing nin isdilaya asaga dhibaato isku horseedayo la badbaadinayo danta laga lahaan karo maxay tahay waa nothing oo aan bini aadanimo ka ahayn oo aan muslimnimo ka ahayn turki waa nimo walaalahan muslimiin wayna ku mahadsan yihiin dad walaalahood islaam dhaqan jaahiliya qabili ku dhaqmayo inay usoo gurmadaan ay gacan siiyaan waa ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaa ilaahina waxaan leenahay ajir ha ka siiyo iyo xasanaad aan la soo koobi karin gurmadka walaaltinimo ay noo soo sameeyaan wax ay dan ay noo leeyihiin ma laha nin oo dhibaataysan oo jaahilnimo isku dilayo in la badbaadiyo waa waxa diinta islaamka ay qabto waay Soomaaliya markii ay qaadatay federaalka dawlado fara badan ayaa yimid in ay wax ka qabsadaan ayadana wax u qabtaan Turkiga markuu wuxuu qayb ka yahay dawladahaas dalka ka yimid laakiin si uu ay tahay dawladda kaliya muuqato wax qabadkeeda ee dadka Soomaaliyeed ay xusi karaan tani markii ay jireen awaaraha oo madaxweynaha ka ahay dawladii hore ee kumeelgaarka Shariif xiliga dawladda Turkiga waxay ahayd dawladda kaliya oo muuqato wax qabadkeeda Soomaaliya wax u qabatay dadkuna waxay aaminsan yihiin oo markii aad la sheekaysato Turkiga muxuu dalkan ka damacsan yahay aad tiraado badi waxay ku sheegayaan inay xaaladooda ay siyaasad ka dameyso nooca sheegtay inay siyaasad ku qodtumin